adiga idaawanayo ma rabtaa inaad ka faa'iidaysato qiimo dhimista maalmaha dahabiga ah oo aad ku hesho qaar ka mid ah adeegyadeena kala duwan waxa qiimo dhimisada kugu sameeynay qaar ka mid ah adeegyadeena kala duwan oo qayb weyn ka ah qaybteena skincare-da waxa idinku sameeynay qiimo dhimis gaaraysa 13%. haddii aad u baahan tahay gurigaaga inaad sharxato huwaal waad u baahan tahay decorationadan kuwan iyo kuwa ka qurux badan waxa lagu sameeyay qiimo dhimis gaaraya 20%. haddaba 20% waa qiimo dhimis mudan in laga faa'iidaysto aan ka wada faa'iidaysano weli waxa ku guda jirnaa qiimo dhimisteena maalmaha dahabiga halka waxa inoogu diyaarsan smartphone-yada iyo saacadaha rag iyo dumarka waxay ku jiraan qiimo dhimis la eg 15%. sidoo kale smartphone-yada waxay ku jiraan 5%. sidoo kale qiimo dhimisteena waxaa qayb weyn ka ah qaybtan oo aan taaganahay oo ay ku diyaarsan yihiin dhammaan cabitaanada soft drinkska qiimo dhimis gaaraya 5% ay ku jiraan aan ka wada faa'iidaysano haddeertaana waxaan isla soo gaarnay qaybta ay ku diyaarsan yihiin fruit and vegetables waxa lagu sameeyay qiimo dhimis gaaraya 8%. aan ka wada faa'iidaysano tan waxaan ugu diyaarsan masaasadaha kuwa caaga ah iyo kuwa dhalada ah sidoo kale kuwa setka ay suwata dhammaantoodu waxay ku jiraan qiimo dhimis gaaraya 10%. waxaan ku suganahay qaybta kore oo ay ku diyaarsan yihiin adeegyo kala duwan waxaa qiimo dhimis weyn lagu sameeyay electric kettle waxayna ku jiraan qiimo dhimis gaaraya 10%. aan ka wada faa'iidaysano qiimo dhimistan balaaran qiimo dhimistu waxay bilaabanaysaa 28 September waxayna ku eg tahay 10 October qiimo dhimista si aad ugu faa'iidaysto soo gaar xarumaha kala duwan ee Arn Hypermarket ama adigoo goobta shaqo ama gurigaaga joogo ka soo dalbo adeeg walba oo qiimo dhimista ku jiro application-ka Arn Hypermarket appka kala soo deg Google Play Store-ka haddii aad wadato Android haddii aad wadato iOS si toos ah u booqo website-ka arnonline.com si aad ugu soo dalbato adeeg walba aad u baahan tahay soo dhawaada macaamiishan kuna soo dhawaada adeeg ku filan iyo qiimo jaban mahadsanidin